ayaa waxa ay soo wacno shaqo ku jira nin saaxiibkeeya oo wiil walaal waxa ila soo hadashay gabar oo baadiriyad ah oo ka soo jeeda dalkan South Sudan South Sudan arin mucjiso ay ii sheegtay marka waxaan rabaa gabadhaas inaad la hadashid kaalay buu igu dhahay masaajidka Amsa ee magaalada Melbourne ma arkaysaa si aad qisada uga dhageysatid gabadha waxay rabtaa talo in laga siiyo arinta ay la kulantay صح waan soo baxay Melbourne bay ahayd masaajidkii aan tagay labadii duhurnimo balansanay gabadhii way mashquushay xilliga marka telefoon baan ma arkaysaa aan kala hadlay Allahu musta'an gabadhii iyada ahayd ilaahay khayraasiya waan wareystay waxaan ku yiri maxaad la kulantay subhanallah arin waxay ii sheegtay cajiiba gabadhii waxay igu tiri muddo 5 bilood ayaa habeen walba iyo maalin walba waxa dhacda qof magaciisa igu sheegay Jabir al-Ahmed ayaa riyada igu imaada wila hadla marna aayado quraan ayuu igu dul aqriyaa baytiri waa iyadoo jiifta hurdaysa صح ayadii quraanka anoo hurdaya markii la igu bilaabo aan soo kaco oo indhaha aan kala qaado ama intaan indhaha kala qaadin ka hor waan soo kacay waan soo jeedaa laakiin saaranahay still waan maqlayaa aayadii quraanka ninka igu dul aqrinayo gabadha marka waa Christian waa baadiriyad kaniisada ay ma arkaysaa kutub ka bixisaa ay ka wacdisaa Bible-ka sharaxda professional weeyaan waliba waa qof soo baratay oo diploma ku soo qaadatay baadirnimada family-ka ay ka soo jeedana waa family sidaas oo kale diinta Christian ku adag marka maanta axada program bay lahayd maanta axada oo taariikhdu hadda ay tahay 3 bisha March program bay kaniisada ku lahayd inay ka hadasho oo iyada inay ka hadasho ay rangaraysa ay ahayd صح marka waxay dhahday muddo 5 bilood ah quraankii waa la bilaabayaa waan soo kacay waan soo jeedaa indhahayga way xiran yihiin waan maqlayaa ciyaalkayga markay hadal bilaabaan quraankii waa la joojin markaan musqusha aado waa la joojin subhanallah aayadaha marka ay ii sheegtay lagu aqriyay gabadha ay waliba ay xifdisan tahay صح waan idin la wadaagayaa walaalahaygan waan la wadaagayaa haduu ilaahay idmo marka mar waliba waxay moodaa ama qof guriga ku jira inuu cajalad quraan daaray maha waxay riyo ay ku aragtay kaliya quraankii bay maqlaysaa say gabadha ii sheegtay iyadoo soo jeeda صح waxaad ka dareemaysaa aayadaha ay sheegtay in lagu dul aqriyaa cajiib ah صح marka way baxdaa dariskay u tagtaa waxay dhahdaa qof muslima miyaa jira oo ereyadan degan oo ma arkaysaa quraan ka shiday guriyaha dariska ah gaaladii waxay dhahaan may meeshan qof muslim lama degna marka gabadhii waxay ma arka arinta sababtay guriga degnaa jirtay inay ka guurto because yes waxay u aragtaa iyada say ii sheegtay masiibo iyada ku soo wajahan inay tahay صح waxay tiri waxa laga yaabaa inaan soo waalan rabo arina igu soo wajahan guriga waxay ugu jira marka gurigii way ka qaxday because qof u sharxana wixii may arag xaafad kale degtay صح marka arintaas ay haysatay igu tiri gabadhii suuradaha lagu aqriyo marka ay ii sheegtay waxa kamid ah suurada lagu aqriyay oo wadaadka uu ku aqriyay aayada ugu horeysay suurada ugu horeysay waxay suurada al-asr waxay ahayd wal asr inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mar waliba uu yimaado suuratu al-asr buu igu dul aqrin baydir waan garan waayay anigii marka haddana maalin kale ii soo laabtaa habeen kale ii soo laabtaa suuratu yaasiin buu igu dul aqrin subhanallah yaasiin suuratu yaasiin buu igu dul aqriyaa ha waa isla ninkii magaciisa ay ku sheegtay Jabir al-Ahmed suuratu yaasiin wal quraan al-hakim aayadii buu sii wadayaa waan garan waayay markii quraanku igu bilaabto waan gariirayaa bay dhahday waan soo kaca haddaan soo kaca xitaa wali quraankii waa shiday guriga ka daaraya ciyaalku markay hadal bilaabaan waa la joojinaya haddaan musqusha aado waa la joojinaya haddaan soo laabtana quraankii waa daaran yahay inta waxa si dheer bay ugu dhahday 5 salaadood adinka markii la gaaro waa la adima adin bay maqlaysaa waxay dhahay haddaan guriga joogo haddaan kaniisada aan joogo 10 aan bixinayo haddaan suuqa joogo adinka salaada xilligeeda markii la gaaro waa la adima
adin caadi ah oo min bidaaya ilaa nihaaya la dhamaystirayo waxa igu darneed bay tir maalmaha kamid ah anoo kaniisada ku jira 10 bixinaya kaniisadii ba subhanallah ayaa adinkii ka dhawaaqay waan gariiray hadalkii waa sii wadan waayay dadkii kaniisada ku jira igu dhamaad hadashid maxaa la aamusan tahay markaas ay culeys ay haystay suga waan la yaabay bitir marka ana waxa Allahu akbar mar walba waa google gareeyaa muslim prayer times ban fiiriyaa bay dhahday waxa ii soo baxda adinka xilliga maqlay inay xilli salaada oo adinka muslimiinta ay adimaan waxyaaba cajiibka carabiga marka ayada markii aadaanka iyo suuradaha iyo luqada carabiga taqaana ma sha Allah jazakallahu khayr su'aal fiican gabadha waa gabar Suudaaniyada luqada carabiga way taqaanaa South Sudan weeyaan Khartoum ay waliba ku soo dhigatay high schoolka marka luqada carabiga si fiican bay u taqaanaa bible-ka isagoo carabi haysataa way dhigtaa marka aadinkii way garanaysaa subhanallah marka waxay dhahday anoo kaniisada ku jira ayuu adinkiisa ay ugu dhawaaqayaan mar waliba meel waliba aan joogo waxyaaba cajiibka marka ii sheegto waxa kamid ah salaada macna xilliga waa bariga markii la gaaro laba jeer la adimaa bitir wala fiirso subixi oo kala duwan waa labada adin oo fajrka subhanallah adin waa adinka dambe salaadaha kale afar adin kaliyaan maqlaay tiri marka inta waxa sii dheer oo aad iga yaabisay gabadha ay ii sheegtay waxa dhacda bay dhahday wadaadkii inuu ii imaado oo igu dhaho af carabi uu sheegayaa wuxuu leeyahay shahaadateynka ku dhabaaq haka xarimin dadka muslimiinta ah in ay kula dabaaldegaan ay kula farxaan ee kaalay oo nagu soo biir waqra al-fatiha macna اقرأ الفاتحة معنا صح gabadhii waxay may garanayeen marka shahaadateynka iyo wadaniga oo ka hadlayo iyo wixii ma fahmayso oo shahaadateynka la rabo in lagu dhawaaqo iyo marka nagu soo biirtaan iyo way fahmi laadahay shan bilood bay ku socdaan ay guriga kaga soo guurtay guri kale soo degtay wali quraankii waa socdaa adinkiina waa socdaa ninkii wuu soo laabanaya wuxuu leeyahay kaalay oo nagu soo biir ummadda muslimiinta ha kula dabaal degaano marka waxay tiri arintii waxay ugu noqotay arin fajicisa waxaan u tagay bay tiri marka arintii ugu yaab badnay waxaan u tagay bay tiri baadariga aan kaniisada 10 kan ka wada bixino waxaan ku dhahay bay dhahday arintaas ay haysata oo mar waliba waa la imaada quraan baa lagu aqriyaa suuratul asr wal asr insan la fi qasr yaasin quraan al hakim adin baan maqla nagu soo biir baa la dhahayaa marka aniga xaalkayga ma garanayo waxba igu soo wajah inaan waalan doona laga yaaba arintani ii fasir baan ku yiri bay tiri ninkii baadariga ahaa marka wuxuu ku dhahay waxa ku haya waa waswaas fidnaana kugu soo socota buu yiri ma arkaysaa intaad ka jeesid waxa is ilaawsiisid maybe waxa laga yaabaa inaad cidla dareemaysid familkaaga aad u xistay aan lacag ku aruurino aan ku dirno Suudaan familkaaga soo booqo holiday soo qaado wuxuu ugu daray marka arinkani ka qari muslimiinta ha u sheegin cid kalena hala wadaagin arkan gaalada xitaa hala wadaagin adiga kugu ekaada lacag baan ku aruurinayna holidayda iska aad gabadha waxay ugu tiri ninka baadiriga waxaan ku yiri arinka i haya ma ahan ma arkaysa wax u baahan safar ma xalin karo there is something going on around me better marka waxba igu soo socday tiri aniga waxba igu soo maqan marka waxa jirkeyga ka qaylinaya ama arintani waxaan rabaa in la sharxan u baahnaa beetri adiga marka telefoon ay marka halkaas kugu weydiinaysaa su'aalahaas aniga telefoon bay igu sharxaysaa markaas waxaan ku yiri war aan ku siiyay hadaba waxaan ku yiri waali iyo junuun kugu ma soo socdo waxa aad maqashay waa quraan jin inuu ku imaado ana shaydaan inuu ku imaado quraan kugu aqrin maayo suuradaha lagu aqriyay laftooda macna gaari xambaarsan yihiin baan ku yiri kitaabka Ilaahay haddaan kaaga bilaabo suuratul asr إلهي وحول لي هاي والعصر إن الإنسان لفي خسر يا إلهي دهري مع عصرك كل عرنا يا ربي عز وجل وحول لي دتك بين آدمك أو إذن خسارة كسجينهن خسارة ده وحكبت بهذه كلية
ila alladina aamanuu wacamiluu الصaalixaat kow kuwa ilaahay rumeeyey nebi maxamedna nebinimadiisii rumeeyey oo camal wanaagsanna ku daray xaqa iyo sabarkana ma arki dadka u dardaarmay dadka kaliya ayaa ka badbaadaya khasaarada bani aadamka ay ku sugan yihiin buu ilaahay leeyahay suuradani imaamu shaafici oo aimada muslimiinta kamida wuxuu dhahay haddii keligeed ay soo degi lahayd way ku filnaan lahayd dadka marka suurad muhiimad gaar ah xambaarsan waaye adiga ayaa waxaa lagu tilmaamayaa baan ku yidhi in aad ka soo baxdo wadada aad saaran tahay oo iimaan oo ah ilaahay nebi maxamed rumaysid camalna aad ku dartid baa lagu dardaarmayaa si aad u badbaadid waxaan ku yidhi baadirnimadaada maxaad samayn jirtay waxay ugu tiri weligay khamra ma cabin ma zinaysan dad ma dhicin dad ma caayin ilaahay mar waliba janno iyo wadada saxana weydiin jiray ugu tiri haddaba waxaan ku yidhi ilaahay qalbigaaga u akhristay wadadii saxnayd ayaa ma arkaysaa ilaahay uu ninkaa kugu soo dhiibay baan ku yidhi marka gabadhii warkii waa degay way qaadatay waxaan ku yidhi suuratu yaasiin aayadaha ugu horeysa ilaahay caza wajal wuxuu kugu tilmaamayaa nebi muxamed walu fiirso ilaa adigu kristan baad ahayd nebi ciise waad rumaysantahay laakiin nebi maxamed ma rumaysneed ilaahay wuxuu ku tusayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu rusushii la soo diray inuu ka mid yahay sidaad ciise aad u rumaysay inaad nebi maxamedna aad rumayso ilaahay kugu tilmaamayaa kow qur-aankana inuusan ahayn kitaab nebi maxamed jaabkiisa kala soo baxaye inuu yahay ilaahay kitaab uu soo dejiyey ayaa suuratu yaasiin ay tilmaamaysaa baan ku yidhi tanna waxay ku baraysaa inaad nebi maxamed rumaysid kitaabka ilaahayna inaad qaadatid bay ku baraysaa baan ku yidhi haddaan u soo dhaadhac marka shahaadateynka ku dhabaaq shahaadateynka ku dhabaaq shahaadateynka harka horta ma fahantay baan ku yidhi may igu dhahday markaas waxaan ku yidhi shahaadateynka waa in aad qirtid ilaahay caza wajal inuu keligii u yahay ilaahay kale uusan jirin oo lala caabudo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna inuu yahay rasuul ilaahay soo diray shahaadateynka waa labadaas qayb baan ku yidhi ilaahay iyo nebi maxamed labadaa inaad qirtid ayaa shahaadateynka la dhahaa marka masajkaas waa very clear baan ku yidhi marka kan wuxuu si toos kuu weydiinayaa in aad diinta islaamka aad soo geshid oo aad ku dhaqantid waa risaalo ilaahay adigu kuu soo diray waayaan ku yidhi waana raxmad kuu soo socota ee waali ma ahan baan ku yidhi adinka marka oo 5 jeer lagu adimayo hadda waa 5 salaad waa ad kulay baan soo ilaahay ii waafajiyay baan ugu sharxay waxaan ku yidhi 5 salaadood ayaa xilligooda lagu adimayaa waayo waxaa laga rabaa marka ilaahay nebi maxamed aad rumaysid kadib aad muslim noqotid inaad 5 salaadoodna inaad tukatid baa lagu amrayaa baan ku yidhi marka waxaan ku yidhi kani waa jaanis ku soo maray oo dadku inta badan aysan helin dadka qaar hidaaya oo dadka xaggooda ka ahaatay ayay helaan laakiin adiga hidaaya min Allah baad heshay qof baa ilaahay kuu soo diray waxay ku wareersaneed inay raadiso Jaabir al-Ahmad waxay ugu tiri wadanka uu joogo ii tilmaaninka ii Google garay aan raadiyinka waxaan rabaa inaan ninka aan raadiyaan rabaa waxaan ku yiri raadin baan ku yiri Jaabir al-Ahmad waxaan ku yiri ilaahay baa qofkan kuu soo diray malaa'ikta ilaahay kamid ah inuu laga yaabaa waa qof kale oo ilaahay kuu soo diray laga yaabaa jin muslim ilaahay kuu soo diray laga yaabaa aduu waa qof ilaahay kuu soo diray ha ku wareerin baan ku yiri muhiimadda waxa weeye risaalada islaamka inaad qaadatid oo aad ku dhaqantid ayaa laga rabaa gabadhii run ahaantii waxay igu tiri waa ii duceysay horta saacad iyo 15 daqiiqan telefoonku wada hadlayna markaa waa ii duceysay waxay igu tiri shambil culayskii saarnaa ayaa iga dagay bay tiri markaad ila hadashay alxamdulillah ilaahay baa mahadaas kale ilaahay baa anna i waafajiyay run ahaantii cilmi aqoon aan leeyahay ahayn marka waxay tiri inaan soo waalan rabo ama arin inay ugu soo socoto anigu aan ka baqay bay tiri laakiin hadda culayskii waa iga dagay waxaana sameeynayaa bay tiri sida uu ilaahay rabo inaan sameeyaa bay tiri haddaba waxaan ku yiri ilaahay wuxuu rabaa inaan soo muslimteen ni waxay tiri waan soo muslimi diinta islaamka waan qaadanayaa bay tiri khalaas waa baadariyad qofta diinta islaamka waan qaadanayaa bay dhahday laakiin reerkii dhan gaalnimada way sii dhaafeen buu waa rag mitidiina diinta gaalada ku adag way la dagaalayaan waa baadariyiin
anna waxaan ahay bay tiri baadariyad oo kaniisada intaasoo ummad ay ku xiran yihiin axadda soo socota 10 baan ku leeyahay kaniisada waxyaabaha kale aan ilaa waxa kamid ah wadamada Yurub wadamo badan bay martay ay dacwo u martay ilaa ay Qudus bay tagtay gabadhaas iyadoo Kristaanka si Qudus meelaha oo wanaagsan loo soo tuso maadaama ay baadada iyadoo kaniisada markaysa iyadoo Kristaanka dan faafinaysa markaysa markii waxay tiri qof sahlan ma ahi Facebook-ga hadaa gishid tiri waligayba waxaan share gareyn jiray tiri ma arkaysa Christianity aan share gareyn jiray hadaa anigu muslim aan noqdo dagaal badan baa ay qabsan doon dhinac walba niyo maxaan sameeyaa bay tiri sida kaana inay arintaan ay ka walwalsan tahay marka waxaan ku dhageyso ilaahay ninka ku imaaday adiga ayuu ku soo diray baan ku yiri fariintan special message bay adiga kugu socotay nin kale qof kaniisad fadhiyay waalid ehel kuma socon baan ku yiri diintan waa taqaan baan ku yiri baadiriyad baa tahay qabriga hadaad gashid kaliga aad gali doontaa xisaabtii cadaabtii wax walba alla ku kaliga marka waxaan ku yiri marka ugu horeysa naftaada badbaadi baan ku yiri dadka ha ka walwalin isoo xasuusi marka aayada ugu dambeysay gabadha lagu soo dajiyay aan ku sheegi doonaa astaghfar lagu soo dajiyay maahane riyada loogu keenay ma arkaysa loogu akhriyay markaan saas dhahay waxay ugu tiri khalaas I don't care others waxay tiri aniga naftayda iyo aakhiradeeda ka fikiraya ismaano waan soo muslimi bay ugu tiri marka maxaa xal ah waxaan ku yiri 3 o'clock ahead ma saan u hadlayna 2 ba shaqada bilawnay 3 bay gaadhay waxa hadda waa 3 baan ku yiri caruurtaada iskuul ka soo qaado oo cuntada si oo ma arkaysa tartiida ha degdegin 6 o'clock hadaad waqti haysid nagu kaalay baan ku yiri masaajidka North Melbourne amsa okay bay ugu tiri waxaan sii balansaday markii wadaadan sii balansaday sheekh magan ilaa khayraasiyo sheekh aadan saalix sheekh yaxya muadinka masaajidka iyo wadaad kale sheekh maxamed la dhahayo iyo aniga shanteeni ayaa marka alxamdulillah ilaahay uu noo calfay gabadha inaan la fariisano marka sigis intaysan noo iman ka hor masaajidkan ka tagi maqaaxidan qadar ka doontay anoo marka qadadii u fadhiya bay waxay soo wacday 3 baan kala tagnay waxay soo wacday 3:38 minutes bay soo wacday meelahaas aduu 4 intaan la gaarin markaas waxay u turay cismaan hadda intaan kala tagnay anoo gaarigaygii wadada saaran ayaa hadana mar kale quraankii ka dhawaaqay bay igu tiri gaarigayga subhanallah waan gariiray markii quraanka ma arkaysa la akhriyo waan gariiray bitiri xabsiya ay gashaa gaarigii waxay tiri wadadan istaajiyay hazard light kan shitay tiri sida qof ma arkaysa gaariga ka brogarowa oo kale baawurtiina way iga leexatay arintaas ay qabsantay bay u dhahdeen markaas waxaan ku yiri ma xasuusan kartaa quraanka haabay ugu tiri marka waxa leegu aqriibay iqra bismi rabbika alladhi khalaq ayadiyan u wadi marka u dhameystir marka aniga ma suuradaas yas'allama al-insana ma lam ya'lam way ku jirtay bay ugu tiri hadaba waxaan ku yiri ayadaasna waxay ku leedahay the bible kana waa taqaanaaye kitaabka quraankana baray ku leedahay ku yiri sad umada u gaarsiisid marka alxamdulillah ilaahay waa i waafajiyay marka gabadhii 6 pm bay noo timi wadaadadii bay u sharaxday wadaadadii markay u sharaxday arintii u sharax baan ku yiri wadaadada waa kuwana wadaadadii bay arintii sidii ugu sharaxday way oysay markii wadaadada sharaxaad ay u bilaabeen iska oysay gabadha ma sha Allah raxmadii ilaahay ku soo degtay ilaahay wuxuu ma arkaysaa marka nawaafajiyay gabadhii baadariyada ahayd intaas oo sano kaniisada ma arkaysaa wax ka aqrin jirtay annagoon de gurigeeda ugu tagin ilaahay ma arkaysaa qofka u soo diray annagana alxamdulillah sabab nooga dhigay sidii baan halkii aan tawxiidka ugu qaban gabadhii ma sha Allah diinta islaamka soo gashay ay naga codsatay magaca in laga bedelo Susan baa la dhahay gabadha from Susan waxay noqotay Zainab bay noqotay ma sha Allah marka alxamdulillah waxaan sameeynay in kutub quraan baan siinay kitaab quraan oo keligii aweyn kitaab quraan ah iyo tafsiir oo carabi ah maadaama carabi ay taqaano hadana kitaab quraan ah tafsiir english aan siinay kitaab kale marka waxaan u helnay oo salaada ka sheekeynaya oo laga bilaabo min at-tahara ila at-taslim kitaabkan oo english carabi ku qoran way qaadatay marka masaajidkan tusnay alxamdulillah way baxday maalintii kale soo wacday waxay tiri maqribka marka idin ka tagay around 8 something waa magaalada Melbourne adinka saameynay ilaa 4 am betri kitaabkii yara salaada ka sheekeynaad isiisan aqrinay tiri waan dhameeyay tiri kitaabkii min bidaaya ila nihaaya suuratu faatixana waan ka xifdiyay iga dhageysay bay ugu tiri alxamdulillah suuratu faatixa ka dhageystay way akhrisay gabadhii ma sha Allah
gabadhii ma sha Allah gabdho kale muslimiina u tagay ilaa ahad waa loo tagaa duruus baa la siiyaa waa la soo dhaweeyaa ma arkaysa mu'allafatul qulub baa lagu wadaa alxamdulillah waxyaabo marka cajiibka aan ku soo gabagabeynay marka maalin dhaxdaas had intay saa u soo muslintay kadib ayaa haddana mar kale qur'aan loo akhriyay ana marka khayr Allah si imaam Nasr Muuse la dhahayo oo hooyooyinka dacwada ka wada magaalada Melbourne kamid ah u dirnay iyada iyo teamkeeda ay u sheegaysaa marka anna markii dambe aan la hadli doono ii sheeg ee xaqiijin doontaa waxay tiri aayad baa haddana lagu akhriyay aayadu maxay ahayd baan ku yiri aayadu waxay ahayd bay tiri in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhurkum faman alladhi yansurukum min ba'di hadii uu ilaahay azza wa jalla uu idin gargaaro cid idinka guul dareysanaysaa idinka guuleysanaysaa ma jirto aayadaas lagu akhriyay haddaba indhageysan ku yiri aayadda waxay ku tilmaamaysaa baan ku yiri maadaama aad soo muslintay inuu ilaahay ku gargaaray horta sax cid waliba oo kugula dagaashay islaamnimadaada sax way bajiri doontaaye ilaahay baa ku gargaaray kaama qaalib noqon doonaan baan ku yiri ee adiga ayaa waxa laga rabaa inaad sabirtid baan ku yiri gabadhii alxamdulillah aad bay u faraxday ilaa yawmina hada ما شاء الله وجبر دين تحسين إني برته ما أنت إذا أنا أحد أنا ويكباقته الحمد لله برنامج كي كنيسة درس كنيسة يكون لها ويكباقته ما شاء الله جزاكم الله خير قصص سوينا على شيء وقصة لو عبقات حقيقة إلهي سبحانه وتعالى قفك هنون لدونا ينا عد باديين كرتمان قفك إلهي باديين عد هنوني كرتمان